waa galab ka duwan galbihii hore ee lagu ciyaari jiray garoonkani Alamsey Stadium. sanado badan kadib garoonka Alamsey Stadium waxaa galabta laga hadalhayaa soo laabashada naadiga ciidanka booliska gobolka Togdheer ee Goodir oo aan muddo dheer maaliyadda ciidanka booliska lagaga ciyaarin kubadda cagta magaalada Burco waxaana si aad garoonka uga dhex muuqanayay ciidamada booliska gobolka Togdheer oo badi soo buux dhaafiyay gudaha garoonka maadaama ay aad u xiiseynayeen inay daawadaan naadiga ku ciyaara magacooda ee Goodir ciyaartan oo u dhaxaysay kooxda ku ciyaaraysay magaca wasaaradda horumarinta beeraha ee Somaliland iyo kooxda ciidanka booliska gobolka Togdheer ee Goodir ayaa ahayd ciyaar xiise gaar ah lahayd waxaana taarabuunka qalcadda Alamsey soo buux dhaafiyay boqolaal taageerayaal ah oo soo daawasho tagay ciyaartani isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray oo horkacayay naadiga ku ciyaarayay magaca wasaaraddiisa ayaa ugu baaqay bahda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inay sii kordhiyaan dadaalka horumarineed iyo dhiirigelinta dhalinyarada maanta runtii waa maalin wanaagsan booliskan la ciyaaraynaa waxaan gacanta kaga jirnaa wax soo saarkii gacanta xagga ciyaaraha marka waxaan ku rajo weynaa inaanu badinaba haddiina laga badiyana waa nasiib oo maalin badacid baa badisa bahda dhalinyarada iyo garsoorka waxaan soo jeedin lahayd ciyaaraha waxaan soo jeedin lahaa sida ay wadaan inay ka sii kordhiyaan ayaan soo jeedinayaa taliyaha saldhigga aadan Saleebaan Fuaad Axmed Saleebaan ayaa dhankiisa soo dhaweeyay ciyaartani xiisaha leh ee galabta dhex maraysay naadiyada ciidamada booliska iyo kooxda wasaaradda beeraha anigu taliyaha saldhigga aadan Saleebaan Fuaad Axmed Saleebaan waxaanu halkan galabta u nimi ciyaar dhex maraysa dhalinyarada gobolka Togdheer tiinka u ciyaaraya booliska Goodir iyo tiinka u ciyaaraya wasaaradda beeraha ciyaartaas waa ciyaar wanaagsan oo xanaan leh marka anaguna waanu dhiirigelinaynaa waanu soo dhaweynaynaa booliis ahaanna waxaanu kaga jiraa kaalin wanaagsan gobol walba xagga ciyaaraha bulshada kale iyo sportska kale iyo kooxaha kalena aad iyo aad baan u soo dhamaan dhamaan waa dadka iyagii hadda waxa dhinacayga taagan daawadayaal gudoomiyaha kooxda Goodir naadiga ciidanka booliska ee gobolka Togdheer waana askari ka tirsan ciidamada booliska Cawaale ku soo dhaw marka hore telefishinka Heriya aad baan ugu soo dhaweey Joker kooxda ku ciyaaraysa magaca Goodir ee gobolka Togdheer iyo kooxdan kale iyaduna ku ciyaaraysa magaca horumarinta wasaaradda beeraha waxa ugu dambeysay 2012 awoodana kulay iyo magacan booliskana waxa ka mas'uula oo halkan aad uga salaamaya taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland Sirriye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Fooxle iyo saraakiisha iyo waliba taliyaha qaybta gobolka Togdheer Axmed Cali Shabeel waxa kale oo nala jooga oo imika garoonka jooga oo aan arag wali gudoomiyaha kooxda Goodir ee caasimadda ayaa jooga ciyaartan u yimi isagana aad baan u salaamaya Jamaal horumarka maalinba maalinta ka dambaysa ay sii sameynayaan ciyaaraha kubadda cagta gobolka Togdheer ayaa ah mid ifaafaalo iyo rajo sii gelinaya dhalinyarada taasoo maalinba maalinta ka dambaysana ay ku hiranayaan shirkaduhu inay naadiyaal magacooda ku ciyaaro ay sameystaan Cabdisamed wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Goodir balse waxa uu maanta ka warbixinayaa sababta dhalisay inuu ciyaaraha dib ugu soo laabto kooxda Goodir waxa magaalada Burco gobolka Togdheer markii ugu horeysay laga yeegleelay 2004 haddana muddo kadib khadka ka yara baxday 2010 baa dib ciidamada boolisku haddana ay u qarameeyeen muddo ilaa imikada way jirtay inkastoo yara kala tambaabeen oo sportska gobolka dhan hoos yara dumi laakiin intii ay curatay nidaamkan cusub ee uu hogaaminayo Kaysi Yuusuf Cilmi waxaan moodaan kubadii gobolka Togdheer ay soo noqotay oo soo noolaatay galab kasta halkan ayuu xaadir ku yahay Cismaan Baadi oo kamid ah ciidamada booliska gobolka Togdheer bal waxaanu maanta weydiinay sababta uu waqtigiisa inta ugu badan ugu lumiyo xasilinta ammaanka garoonka imika ilaa 4 sano waan imaanayay laakiin rasmi imikan ku hay muddo imika 6 bilood rasmi baan ku haysan dadka uga shaqeeya garoonka waan marnaba habeen iyo maalintoona ka fadhiisan dhalinyarada isugu keenaa oo ku shiriya xitaa
taasaan gaaray xitaa inaan dhaafo oo anagu shiriyo anigayga biliiska oo aan waxaan ku shirinayaa inay bahasha qabyaaladda tahay aidis oo ay iska dhaafaan macalinka naadiga Goodir iyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer ayaa iyaguna aad u soo dhaweeyay horumarka taabagalka ee ka haran qaaday ciyaaraha gobolka Togdheer anigoo ku hadlaya afka magaca Goodir naadiga Goodir tababaraha Goodir waxaan aad u hambalyeynaya naadiga Goodir oo ku guuleystay koobkii galabta ciyaarta halkan ka dhacday waxaan soo dhaweynayaa iyagana ugu mahadnaqaya kooxdii la ciyaaraysay oo aad si sharaf leh wasaaradda beeraha oo si sharaf leh iyaduna ciyaartooda aad u wacnayd waa ciyaartoogii hore ee la yaqaanay iyo magacii hore la yaqaanay waa kooxda Goodir ee booliska iyo wasaaradda beeraha oo maanta halkan madaxaystaray waa ciyaaro aad loo sugayay waa ciyaaro qiimo badan waa Goodir oo booliskiya oo ciyaar qiimeey qaayale maanta soo bandhigay waad aragtaan ciyaarta maanta socota 2 goor ayay maraysaa kii saddexaadna waa ka dhashay 3 gool bay maraysaa oo Goodir ku hogaaminayso waa koob aan u dhignay haddaan nahay wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer sidii mar walba ay dhalinyaradu isu dhex gali lahayd ee magaca gobolka u soo noqon lahaa ugu dambayna naadiga kubadda cagta ee Goodir ayaa ku guuleystay koobkaasi waa Maxamed Xasan Diriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco